السلام عليكم dhalinyaro sidee tihiin waan ogahay shalay waa idin gambiye maadaama jimce ahayd aan ma jecel jimciina wax duuba soo jimci saaxiibkay jooga guriga bulsho waxa ma lagu mashquuli kar sidaas darteeda maanta jimcaha dhan wax ma soo dhigay laakiin maalin ku dhaaf maalin walba sidaan igu soo dhigay idin soo dhigaa maalinta jimcaha degso aadan waxa idin ma soo dhigay insha Allah filimkeen maanta wuxuu ka bilaabanayaa gabar Hina la dhahayo Hina run ahaantii dadka yaqaanaan oo dhan waxay sheegaan inay tahay gabar aqli badan oo waxbarashadeeda mar walba ku dadaasho waxbarashada kadibna waxay caawisaa hooyada iyo aabaheeda oo maqaayad leh mar walba nolosheeda hore u sii wadataa iyadoo san ka fikirin qof kale riyadeedan waxay ahayd inay amiir yeelato amiirkaasna mar walba ay ku riyootaa dhanka kale waxaan aragnaa saaxiibadeeda Hakira iyo saaxiibkeeda Akira waxay ahaayeen labada qof ugu dhaweey iskuulka xilli walbana garabkeeda ay taagnaan jireen hooyadeeda iyo aabaheeda run ahaantii gabadhan way ku faani jireen maadaama waxbarashadeeda iyo maqaayada shaqadeeda ay ku filan tahay dhanka kale Hina waxa jirtay gabar yar oo la dhalatay laakiin gabadhaas waxay la dhaqmi jirtay in ayada dhashay oo kale mar walbana way daryeeli jirtay habeenkii markay seexanaysan waxay aqrin jirtay buug sheeko sida ayadaysan u xaajisan ayadoo dib ku qabtanaysan u seexanin ayadan run ahaantii walaasheed aad iyo aad ay u jecleeday habeenada kamid ah waxay tusinaysaa film romantic ah ayadan inta fiirinaysa aad iyo aad ay ugu helaysaa maadaama aad ay u jeceshahay filmaanta romantic ah weliba aktarkan oo filimka jilay aad iyo aad u xiiseeysa dhanka kale waxaan aragnaa aktarka filimka jilay oo magaciisa la dhaho Kayda run ahaantii dadka oo dhan aad iyo aad ay u jecel yihiin dhanka kale habeenkii markii la gaaray Hina waxa soo waxay saaxiibadeeda Hakira waxay ku dhahaysaa aktarkii weynaa ee Kayda bari wuxuu imaanayaa iskuulkeena waxaanu ku jilayaa filim run ahaantii anigan midaas waan ku faraxsanahay dhanka kale Hina ayadan aad iyo aad ay midaas ugu farxaysaa subaxdii markii la gaaray maamulayaashu waxay u sheegayaan ardaydan inay ka mid noqon karaan jiliinka dhanka kale waxa la dooranayaa Hina iyo saaxiibadeeda Hakira waxaan la gelinayaa shaybaarka sida filimka qaybtooda ay u jilaan laakiin Hakira aad iyo aad ay u muuqataa inay xamaasadeysan tahay sidoo kale Hina ayadoo jecel aktarka adinimo muujinayso si lama filaanayo qof ugu kordhahay idan indhaha ay taagaysaa si darbanayoon wuxuu dhahayaa iga raali noqo ayadan wajigiisa ay fiirinaysaa kadib waxay ogaanaysaa inuu Kayda yahay aad ay ugu naxaysaa markay jiliinka soo dhamaadan saaxiibada Hakira waxay ku dhahaysaa ma aragtay aktarka weyn ayadan way qarinaysaa waxay ku dhahaysaa ma arkin kadib waxay ku dhahaysaa run ahaantii waan jeclaan lahaa inaan arko meesha dhan way ka tagaysaa kadib waxay arkaysaa xagsiisa sacad way dawraacaysaa laakiin Kayda ay arkaysaa oo gabdhaha iskuulka joogaan fiirinayo ayadan waxay u malaynaysaa inuu yahay qof shaxaari ah silam filaan ayada way dhacaysaa kadibna waxay arkaysaa asigii inuu fiirinayo ayadan jismigeeda ay qarsanaysaa wayna istaagaysaa iyadoo xanaaqsan wuxuuna ku dhahayaa 86 waay cabirkaaga kadib guriga ay imaanaysaa cabirkeeda ayana fiirinaysaa waxayna ogaanaysaa inay isku mid yihiin labada cabir ayada maqaayada joogtana waxay ka fikiraysaa sidoo cabirkeedu u ogaaday kadib hooyadeeda ay ka xusanaysaa inay banaanka u baxdo ayadan way ka ogolaanaysaa waxay ku dhahaysaa iska soo wareeg ugu dambeyn waxay soo aadaysaa mool aad iyo aad u weyn sida bombolo walaasheeda uga yiwiso wax badan ay isku dayaysaa bombolaha inay hesho laakiin wiil ayaa caawinayo sidaas darteedna bombolaha isla markay ay helaysaa ayadoo faraxsan ay soo jeesanaysaa sida uu mahadceliso qofka caawiye laakiin way isku naxaysaa oo waxay ogaanaysaa qofka caawiye inuu yahay Kayda asagan wuxuu ku dhahayaa waxba ha nixin mahadcelintaadan ood ku mahadsan tahay kadib magaciisa ay ku dhawaaqaysaa wuxuuna ku dhahayaa iga aamus kadib gabdhaha meesha jooga markay arkaan aad iyo aad ay u farxaan waana soo daw bursanayaan ayadoo gacanta ka soo qabanaya waan la soo cararaya waxaan ku dhahaysaa maxaad halkan ka soo doonta asagan wuxuu ku dhahayaa filan ayaan duuraway sidaas darteed waqtigeena iskugu dhuminaayay kadib kaftankiisa aad iyo aad ay u helaysaa wayna qoslaysaa run ahaantii sida lagu malaynayay sidaad u muuqato waa kala duwan yihiin ayay ku dhahaysaa intaas wixii ka dambeeyay waxay ku dhahaysaa filan ayaan ka tahay aniga waan ka tagayaa asigan wuu qoslayaa kadib waxay imaanaysaa shaleemada gacanteeda ay fiirinaysaa waxay ku dhahaysaa maadaama gacanta iga qabtay aniga lagama yaabo inaan dhaqo kadib qof ayaa horteeda soo maray dhinaceeda ayuuna fariisanaya waxayna ogaanaysaa inuu yahay Kayda intaas wixii ka dambeeyay filimka ayaa bilaabanaya nalalkan waa la daminayaa kadib ooyinay bilaabaysaa markuu filimka dhamaad waxaan u sheegaysaa filmaanta inay jeceshahay gaar ahaanna waxaan sii jeclahay filimka Cinderella laakiin waxay ogaanayaa kabteeda inay goosan tahay waxaan ku dhahayaa kabahayga sii gashinta kaba kale ka helaysid ayada way diidaysaa laakiin wuu ku qasbayaa maalintii xigta waxay ka fikiraysaa asiga oo kaliya laakiin waxay isku dayaysaa inay silowsiiso xashiradeeda hore u sii wadato kadib waxay maqlaysaa buuq ardayda sameynayso ayadana waxba kama soo qaadayso laakiin waxaan ogaanaynaa buuqaas inuu ka dhashay Kayda maashihiisa asagan wuxuu ku dhahayaa aamus lama filaanayaan sameyn rabaa ayagan way wada farxayaan kadib wuxuu
istaagayaa Hina wuuna soo jiidayaa wuxuuna ku dhahayaa riyada Cinderella waxaa ka mid ah inuu aktarka u keeno kabo kadibna ayada lugaheeda oo geliyo aydan wela yaabaysa midaas ayadoo faraxsanayna kasoo dawbaxaysa waxayna ku dhahaysaa mahadsanid laakiin nambarkiisa ayuu u qoray wuxuuna ku dhahayaa isoo wac markay guriga tagtan waxay ka fikiraysaa inay wacdo kadib ugu dambeyn waxay helaysaa geesnimo wayna wacaysaa laakiin waxaa lagu dhahayaa nambarkan maahan mid jira dhanka kale keedaa egiskiisa shuwayo wuxuu la qaadanayaa waqti maadaama hadeertan wada shaqayn ay ka dhexayso kadibna shaqadooda ay ka wada hadlayaan cabitaanigana wada cawaayaan subaxii markay Hina imaaday iskuulka waxay iska dhaqaysaa nambarkiisa iyadoo xanaaqsan waxayna dhahaysaa dareemahayga kuma ciyaari kartid dhanka kale keedaa maamulihiis wuxuu ku dhahayaa waa inaa is jirtaa wax sumcadaada ku ciyaarayana ha sameynin asigan hadalkiisa ma qaadana wuxuu arkayaa Hina oo meel socoto gaarigayoona kasoo degayaa wuxuu xiranayaa fishmas wuxuuna ku dhahayaa maxaad ii soo bixi weysay adidan waxay tusinaysaa taleefanka nambarka qaldan oo uga qoray asigan wuxuu ku dhahayaa hadeertaan ayaan ku qorayaa midka saxda ah kadib waxay ku dhahaysaa dareemahayga ha ku ciyaarin waa ku baryaha inta halahana kuma dul qaadan kariga fogow markay sii bixisan oo qabanaya fishmaska ayuu xiranaya wuuna shuminayaa aadan midaas ayay la yaabaysaa si xunayana u fiirinaysaa kadib wuxuu ku dhahayaa nambarkayga hadeertaan qoro magacaagana ii sheeg aadan waxay ku dhahaysaa waxaa la dhahaa Hina kadib wuxuu ku dhahayaa inaan kula kulmayo rabaa beri hadday macquul tahay aadan waxay ku dhahaysaa waya markay guriga maadan dharkeeda oo dhan ay isku soo bixinaysaa aadan fikiraysan albaabkiya waxa kasoo galaya Akirana waa saaxiibkeeda yaraanta markay aragtan dharkoo dhan ay aruurinaysaa asigana wuu ka naxaya xaaladda ku jirto wuuna ka tegayaa kadib ay soo diyaarinaysaa waxayna soo istaagaysaa banaanka asigana wuu imaanayaa si degdeg ayuun wuxuu ku gelinayaa gaarigiisa ayadoo midaas la yaabana albaabkiya soo xiraya wuxuuna keenayaa gurigiisa wuxuuna ku dhahayaa gurigan waa guriga raaxada anigoona qaasiya weligaygana gabar maanan keenin ayadan way farxaysaa sawiradiisa hore ayaana fiirsanaysaa kadib waxay bilaabayaan cuntayn isla wada cunaan eena si fiican isku bartaan kadibna daraama ayay shidanayaan kadib romantiga waxaas ay ku arkaysa waxay iska dhigaysaa inay xishoonayso asigana wuxuu iska dhigaya inuu hurdaayo camal markay taawatan wuu kusoo kacaya wuu ku kor seexanaya asigoo shimin raban waxaa imaanaya maamulihiisa kadib wuxuu ku dhahayaa maxaa halkan ka socdo asigan si darbanayo wuxuu dhahayaa qoftan waa girlfriendteyda iska bar magaceedna waxaa la Hina kadib wuxuu weydiinayaa daadeeda aydan waxay ku dhahaysaa 16 jir ayaan ahay kadib markii ayada baxday wuxuu ku dhahayaa gabadhan way yar tahay sumcadaada ayaan laga yaabaa ayada darteed inay u baabaado asigan midaas waxba kama soo qaada wuxuuna ku dhahayaa qafna kama cabsanayay dhanka kale Hina aad iyo aad ay u faraxsantaa maadaama lagu dhahay waa girlfriendteyda mar walba eriyadiisa xasuusatana aad iyo aad ay u farxaysaa kadib keedaa wuxuu usoo qorayaa maasada wuxuuna ku dhahayaa intaan duubis ayaan ku jiraa ma kulmeyno ayadan kulan la-aantaas ayay ka faa'iidaysanaysaa waxayna imaanaysaa beerta u waxay saaxiibkeeda Akira wuu soo hor istaagaya wuxuuna sheegayaa inuu jecel yahay korkorayana usoo fiirinaysaa waxayna ku dhahaysaa doqonyo iga tag adigana waxaa artid ayaad iska sheegaysaa kadib asiga gudaha ayuu soo galaya waxaana usoo dhacaya dalab u wax ayadayaana soo qaadaysa waxayna keenaysaa meesha duubista kadib waxay isdhahaysaa wax la duubayo soo fiiri markay soo baxdan waxay arkaysaa keedaa inuu gabar shuminaayo aydan midaas way ka xanaaqaysaa inkasta duubis ee tahay kadib meesha dhan ay iskaga soo cararaysaa asigan meesha ayuu ku arkayaa wuxuuna ku dhahayaa soo baxay soo raax meel qaas ayuuna geenayaa wuxuuna ku dhahayaa waxaan waa duubis aydan way ku qaninaysaa waxayna ku dhahaysaa darinkayga ayaad ku ciyaaraysaa asigana uu dhawaanaya sankayuuna ka qaninaya wuxuuna ku dhahayaa wax walba waa jilin caadi iska dhig kadib way qanxaysaa waxayna ku dhahaysaa waayahay waxaana si qarsoodi ah u dhegeynsanaysay isaga oo aktirada filimka aheeday intaas wixii ka dambeeyay Hina waxaa soo baxay keedaa wuxuuna ku dhahayaa aan kula kulma caawa ayadan waxay ku dhahaysaa saaxiibkeeda dhalashadiisa waaye caawan asiga ayaan wada cashee rabnaa dhanka kale Hikara iyo Akira ayaa isoo raaxayo Hikarana waxay ku dhahaysaa saaxiibada u sheegay jaceylka kadib ayada ayaa soo bixaysa wayna wada kulmayaan laakiin keedaa ayaa si kadis ku imaanayo ayadan inay isbartay ay isku dayaysaa laakiin keedaa wuxuu ku dhahayaa waa gaclisadeeda kadib habeenkay wada sheekeysanayaan Hikarana waxay ku dhahaysaa saaxiib wax walba iga qalis maxad iigu sheegi weyse adan waxay ku dhahaysaa xubal silam filaanay ay ku dhaceen kadib Hina ay saaxiibadeed meesha way ka kaxayaan sida wiilasha isku bartaan kadib Akira wuxuu ku dhahayaa Hina ma jeceshahay asigan wuxuu ku dhahayaa aad iyo aad ayaan u jeclahay kadib wuxuu ku dhahayaa Hina aniga waan jeclahay waxaan jecelkayga ugu tanaasulay maadaama ayadaba ay ku jeceshahay laakiin haddaa xumaato u geystid anigan kabayaan kaa siin doonaa jecelkaygan hore ayaan usii wadanayaa asigan midas asigoo ka fikiraya Hina soo dhaweynayso wuxuuna ku dhahayaa hadeertaan
dhahayaan tartan ayaa ii bilowday. Kadib waxaan aragnaa maalinta xigtay inay imaaday gurigiisa. Kadib waxay arkaysaa asigoo shukumaan u xiran wayna naxaysaa. asigana wuxuu ku dhahayaa isdeji dhar ayaan wataa aniga. kadib waxay ku dhahaysaa maxaad halkan iigu yeertay. wuxuu siinayaa furaha guriga wuxuuna ku dhahayaa baswirkan aniga ayaa kuu soo sheegi doono. mar walbana waad imaan kartaad caajis dareento. aydan way ku farxaysaa waxaana ku dhahaysaa mahadsanid. waqtiga wuu soconaya adigana muuqaalkii aad leeg saaraysaa. maalin maalmaha ka mid ah Keedaa wuxuu arkayaa kooxdiisa hore. markuu arkan run ahaantii aad iyo aad ayuu u naxayaa kooxdan ayagoo arkaya inay dhinac marayaan. habeenkii oo dhanna wuxuu ka fikirayaa kooxdiisa. wuxuuna galayaa xasuus. wuxuu ka mid ahaa koox fanaaniin ah. wuxuuna hogaamiye ka ahayaa asiga. laakiin muddo kadib wuxuu go'aansanayaa inuu kooxda iskaaga baxo. ayagan way ku xanaaqayaan waxayna ku dhahayaan iska tag. sidaas darteed asigana wuxuu noqday jilaay. sababta saxda ah ugu tagayna lama sheegayo. dhanka kale Hina waxay maqlaysaa gabdhihii iskuulka joogaan oo sheekaysanayaan. gabdhahaas waxay dhahayaan Shuu iyo Keedaa way isku soo dhawaadeen markaan. waxaan laga yaabaa inay isku soo laabtaan labadooda. run ahaantii way isku qurux badnaan lahaayeen hadday isku soo laaban lahaayeen. Akirana markaas wuxuu fiirinayay wejigeeda. saaxiibadeedii macsalaameynaysa waxayna ku dhahaysaa wax walba inay hagaaganayaan rajeynayaa. aydan waxay ku dhahaysaa waan u xiisay waxaan rabaa inaan u tago. gurigiisa ayay imaanaysaa wayna iska soo furaysaa. laakiin waxay arkaysaa kaba dumar markay aragtay inay shiminooyeen Shuu iyo Keedaane. aad ayay uga naxaysaa wayna kasoo xararaysaa. kadib Keedaa ayaa kasoo dawgalaya wuxuuna ku dhahayaa wax walba qalad ayay ahaayeen. aydan waxay ku dhahaysaa iga fogow hadalkaagana ma rabo. muddo badanna guriga ayay ku jiraysaa laakiin hooyadeed waxay u sheegaysaa inuu u yimaaday Akiraan hab ayuu siinaya wuxuuna ku dhahayaa waa ku baryaa wax walba iska ilow. ninkaas marka horeba wuxuu rabay adiga qalbiga inuu kaa jabiyo mana kuu qalmo. anigaa ku jecel waxaan rabaa inaan nolosheeda inta kadhima aan ku sugo intaad iga aqbalayso. aydan waxay ku dhahaysaa midaas ma aqaan waxaan ku jawaabo sababtoo iyada mar walba waxay weysatay inay yihiin saaxiibo. maalinta xigta wuxuu ugu hor imaanaya iskuulka wuxuuna ku dhahayaa ma ka fikirtay. aydan Shub ayay ka dhahaysaa mana la hadlayso. kadib waxaa la kulmaysa Shuu waxayna ku dhahaysaa run ahaantii waxaa tahay gabar wanaagsan waxaana rajeynayaa anigina la dagaalamaysid. aydan waxay dhahaysaa hadaadba ninka kalsooni ku qabin maxay taa waxa faa'iido igu jirta aniginaan adiga kula dagaalamo. aydan waxay ku dhahaysaa isla markii ayaad niyad jabtay ka waran. aniga ma niyad jabinayay ku dhahaysaa laakiin waxaan dareemayaa kalsooni xumo. sidaas darteed marwa qof bini'aadan inaan la dagaalamo. sidaas darteed ayaan anigan halkan u imaaday ayay ku dhahaysaa. markaan gurigiisa ugu tagay waxaan kaamirada ka arkay adigoo soo galayo. kadibna si kadis ayaan ku shumiyey. anigan waxaan halkan u imaaday inaan midaas kuu sheego. haddaad ku naxaysid iyo haddaad ku joogaysid waa macsalaamo. aydan midaas way ku farxaysaa. habeenkii wuu u imaanaya wuuna raaligelinayaa wuxuuna ku dhahayaa iga raali noqo. aydan waxay ku dhahaysaa iga raali noqo basa. asigan wuxuu ku dhahayaa wax walba jecesha hadda kadib waan kuu sameynayaa balan iyo axdi waaye. aydan way ka ogolaanaysaa kadibna wuxuu kireysanayaa beer aad iyo aad u weyn sidoo farxad u siiyo. kadib wuxuu saarayaa wiifooyaal badan laakiin ayada wejigeeda farxad kama muuqanayso. ugu dambeyn wuxuu arkayaa iyadoo farxaysa jalaato ayuuna u gadayaa. kadib iyadoo qanacsanaya oo gacanta kasoo qabanaya beertan way kasoo baxayaan. laakiin intaysan soo bixin ka hor wuxuu ku dhahayaa indhaha isku qabo. indhaha markay qabatan waxay u malaynaysaa in la shuminayo laakiin waxay arkaysaa katiinad kab ka samaysan in qoorta lagu xiray. aydan way ku farxaysaa waxayna ku dhahaysaa mahadsanid. aydan waxay ka fikiraysaa calaamada Cinderella. ugu dambeyn way soo wada baxayaan filim ay isla fiirsanayaan. waqtiga sida u socdan ay jecel u jilayaan. warbaahinta ayaa ogaanayo. TV-gan waxaa laga soo deynayaa asigoo la dhahayo gabar yar ayoo shukaansada. wariyaasha dhanna waxay dhahayaan Shuu jecelkeeda ma waxaad iskaaga daashay dawcil yar oo iskuul dhigata darteeda. dhanka kale waxaan aragnaa Shuu daawanaysa TV-ga iyadoo la yaaban waxa ka socdo. kadib gurigiisa ayuu imaanayaa guriga ayuuna ka fikirayaa. warbaahintii waxay qoraysan run ahaantii wuu la yaabayaa. kadib waxuu imaanaya maamulihiis wuxuu ii sheegaa maxaad iigu sheegi weysay inaad xaalad caafimaad qabto. asigan wuxuu ku dhahayaa shaqadeeda hore ayaan diidanaa shaqadeeda dambe inay u baas noqoto. kadib maamulaha asiga khilaaf ayaa dhexdooda soo dhexgalayo. arrintaas oo dhanna waxaa ogaanaysa Hina. asiga ayaan la kulmaysaa waxaan ku dhahaysaa dhibaatada ku jirtid waan ogahay. asigan wuxuu ku dhahayaa dhibaatadan ku jirta darteed inaad iiga tegaysaa. kadib waxay ku dhahaysaa waxaan kaaga tegayaa inaad horumar gaartid. aniga darteedan marwa inaad horumarkaaga u weysid. kadib ayadoo uuna soo cararaysay meesha kasoo bixaysaa. kadib maxkamadiisa ayaa bilaabanaysa waxaan lagu eedeynaya
doonayaa inuu qariyo inuu dhunta ka xanuunsan yahay. Asiga runta dhan ayuu sheegay wuxuu ku dhahayaa dhuntan ka xanuunsanahay. Kadib maamulaha wuxuu ku dhahayaa caafimaadkaaga aniga yaa qabo. Horumarkaagan qof ka hor istaagi karta ma lahan. Aydan TV-ga halaas oo dhan way daawanaysay. Dhanka kale waxaan aragnaa Hinda inuu saaxiibkeeda u imaaday. Wuxuu ku dhahay hadirtaan wax walba way dhamaadeen. Anigan waxaan jeclaan lahaa inaan jecelkeyga aqbasho. Wajigaas kadibna run ahaantii waxaa ka soo wareeganaysa 3 sano. Kaydana wuxuu sameynayaa horumar aad iyo aad u weyn. Biladan waa laga doonsiinayaa. Wuxuuna naqanayaa jilay caalami ah. Intaas oo hadiyada ayaan u imaanayaan. Hadiyada kamid ayaa waxa ku dhex jirtay bashqad. Bashqadaasna waxaa arkaya maamulaha Kayda. Dhanka kale Akira wuxuu imaanayaa Hinda. Wuxuu keenayaa tigis shaleemo. Wuxuu ku dhahayaa shaleemadaas ka soo qayb gal. Dhanka kale Kayda maamuliisa ayaa wuxuu keenayaa waraaqada. Hadda waxa uu soo koraya Akira. wuxuuna ku dhahayaa aniga iyada jecel nagama dhaxeeyo wiilayada meesan ku iloobin mar walbana waxay fiirsataa filmaantaada hadday macquul tahay u imaaw sida niyada ugu degto dhanka kale waxaan agnahaynaa inay filimka kaligeeda fiirsanayso kaydana waraaqad waxa lagu soo qoray inay shaleemada joogto Hikra iyo Akirana waxay ku farxayaan saaxiibadooda inay gaxliyaheeda u soo celiyeen Hikrana waxay dhahaysaa labadooda hadda qof kale xilin kar ma lahan sababtoo hiina hadirtaan waa 18 jir dhanka kale maamulaha wuxuu ka xalinayaa dadka meesha joogeen wuxuuna ku dhahayaa shaqo degdeg ah u soo baxday kadib uu soo cararayaa keeda sidoo gacdhisadiisa oo la kulmo wuxuuna si fiican u fiirinayaa tigidhka kadib meel walba ayuu ka soo raadinayaa oo kamid ah shaleemada laakiin uu ka soo weenayaa asigoo quursaday oo soo degdeganaya laakiin ayadoo soo deganaysa ayuu arkayaa wuxuuna ku dhahayaa ugu dambeyn waan ku helay ayadoo naxsan ayayna fiirinaysaa kadib inuu u soo dhawaado ayaa waxa uu soo bixinayaa kabaha wuxuuna ku dhahayaa sandareeladeeda inaan qatid diyaar ma u tahay aydan run ahaantii way ku farxaysaa midaas kabaha ayuuna u gelinaya wuxuuna ku dhahayaa wiligay ma ku iloobin waxaana rabay maalin maalmaha kamid ah inaan ku arko laakiin waxaan u maleynayaa inaan kala sameysatay kadib labadooda halkaas ay isku shuminayaan filimkeena quruxda badnaan halkaas ay ku dhamaanaya muuqaalkan daakaasha like noo saar subscribe noo taawo gambaleelkana furo hadaa buuq dareentay inuu run ahaantii karaal noqdo